ومناسبة سهر سرا لوسو agaasimo habeenkii xalay ka qabsoontay hoteelka Haas ee magaalada Burco isla markaasina ujeedkeedu waxa lagu lafagurayay doorka ay dhalinyaradu ay ku leeyihiin waddaniyada iyo sidoo kale adkeynta qarannimada Soomaaliland dood cilmiyeedkan oo soo qabanqaabsay Jaamacada Alfa University Faraceeda magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda ardayda wax ka barata jaamacadda iyo sidoo kale Professor lagu soo casuumay doodan iyo marti sharaf kale ugu horeyntii waxa munaasabadan ujeedkeeda ka warbixiyay dhiinka kuliyadda Social Science-ka ee Jaamacadda Alfa Maxamed Cabdiraxmaan sida ay ku caddahay boorka iga dambeeyaba waa dood ay wadaagi doonaan ardayda Jaamacadda Alfa iyo dhammaan gobolka Togdheer iyo ururka Somaliland Patriots Appeal oo ah sideeba loo adkeynaya ama dhalinyaradu doorkeebay ku leedahay adkeynta qarannimada Somaliland waa wax in badan runtii inaga guuxaya waa wax in badan runtii aynu jecel lahay inaynu qarankeena qalinka ugu hiilino afka ugu hiilino maskaxda ugu hiilino halkan waxay caaw u joogaan inaynu dhagahooda indhageena maqashiyaan waxyaabo badan oo ka guuxayay inaguna aynu ka gurno su'aalo waxaynu qabno weydiino waxa sidoo kale intay munaasabadani socotay iyaguna halkaasi ka hadlay qaar kamid ah professoradii doodani lagu soo casuumay mas'uuliyiinka socotay wasaaradda waxbarashada gobolka iyo sidoo kale marti sharaf kale iyagoona ku dheeraaday ahmiyada ay dhalinyaradu u leeyihiin adkeynta waddaniyada qaran wuxuu qaran ku yahay waa dareenka qarannimo ee ummaddu yeelato marka dareenka qarannimo haddii la hor istaago kadib qarannimadaasi mar walba nuglaan bay ku sugnaanaysaa qaran nugul buu noqonayaa maadaama ummadda ku hoos nool aanay hab fikir qarannimo lahayn hab nololeed qarannimo aanay lahayn sidaa daraadeed ahaanshayaasha kale ee dadkaasi leeyihiin ee qabiilku ka mid yahay qowmiyadnimadu ka mid tahay ayaa ka xoog weynaanaya ka qarannimo sidaa daraadeedna si fudud baa kolba loo kala tegi karaa sidoo kale si loogu dhiirigeliyo inay qarannimadooda isku abtirsadaan oo ahaanshaha qarannimadoodana ay ku noqdaan ku hanweynaadaan proud ku noqdaan kala gartaan qarannimadu waxay tahay qowmiyadnimaduna waxay tahay marka barnaamijkan qarannimaan u bixinay xisbiyo waxaan leenahay mucaarad sidooda ugu biiri kartaa si shakhsiyana iyaga u mucaaridi kartaa laakiin qarankaaga ha mucaaridin maanta Soomaaliland waxa ku nool dhalinyarada aad iyo aad u badan oo tiradooda lagu qiyaaso 2019 marka la eego 5% dhalinyaradaasi waxa weeyaan laf dhabarta qarankan uu leeyahay markaan barnaamijkan qabanay waxaan oo soo baxday dhalinyarada reer Soomaaliland inaanay u fakirin hab qarannimo ay u fakirayeen hab qowmiyadeed markaan aragnay meelaha barrierska ugu weyn ama caqabadaha ugu weyn ee waddankeena haysata ayuu ururkan isu xilqaamay inuu hawsha galo isla markaana dhalinyartiisa iyo muwaadiniintiisa reer Somaliland ku wacyigeliyo ku dhiirigeliyo jeclaysiyo tuso u iftiimiyo in qaranka qof walba muwaadin inuu ku abtirsado midnimadu ama dawladnimadu waa aqliim in la helo iyo tanfiidkii iyo in la helo shacab iyo tanfiid iyo aqliim hadii la helo waxa weeye dawladnimadu way jirtaa waxay ku soo daraan qoladan afar kaga dhigaan waxa la yiraahdo calanka alcalam oo la yiraahdo calankii afarta hadii la helo dawladnimadu way jirtaa gudoomiyaha Jaamacadda Alfa University Faraceeda magaalada Burco Professor Cabdiqani Ibrahim Xasan ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoona ku dheeraaday ahmiyada ay dhalinyaradu u leeyihiin adkeynta waddaniyada iyo sidoo kale qarannimada runtii caawa farxad ka gudoomiyaha jaamacadaha inaan ku inta soo dhalinyarada runtii isugu timi oo ka doodaya ama inta badan ka aragsanaya waddaniyada iyo qarannimada runtii waxay tahay maadaama sida loo sheego dhalinyaradu ay yihiin dadka ugu muhiimsan lafdhabarta Somaliland ama majority-ga dadka ugu farabadan runtii waana muhiim in wax farabadan runtii la isku weydiiyo waana mahadcelinayaa ururka waa markii koowaad aan malaynayaa gobolka xaflado noocan ah basharo noocan oo kala dooda ay ka dhacaan runtii dowlad kasta ama dowlad kasta oo caalamka ka mid yihiin dhalinyarada waxaa ay dowladda fikir ahaan looga dhaadhiciyaan muhiimadda ay leedahay waddaniyadu oo in manhajka ugu barto markaa dhammaan iyagoo materialkii wixii oo kala socdaan jaamacadaha qaar u bixiyaan laakiin qaarna runtii ma bixiyaan Alfa University waxay ka mid tahay jaamacada bixisa civics and ethical education oo la oo ardaygu ku baranayo waddaniyada ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah loo furay dood cilmiyeedkan lagaga hadlayay kaalinta ay dhalinyaradu ay ku leeyihiin
waddaniyada iyo sidoo kale adkeynta qarannimada Soomaaliland. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan, telefishinka caalamiga ee Som News, magaalada Burco.